waxyaalaha qabsoomay anagu ugu weynaa quwadda saarayna waxa weeye maamulka maaliyadeed iyo sidii loo hagaajin lahaa taasoo aan uga jeedno lacag inaguma samaysanee lacagta dadka laga ururiya Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay markaa dadka Soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan meesha lacagta u dhiibayaan ku kalsoonaan waayaan lacag bixin maayaan talabaad ee taawiirada waxa weeye maadaama lacagta maanta aan soo saari karnaa aan inagu filayn oo aanay xataa ku filayn mushaharka dadka la siinayo iyo hawlgallada la wado kaliya aanay ku filayn oo meel kale aan wax ka doonayno meesha kalena in iyaduna nagu kalsoonaato ayaa rabnaa waa international community inay nagu kalsoonaadaan World Bank imka ka hadlaysa aan ka hadlayna waxa weeye institutionada ugu waaweyn buu yahay imka aaminsanada systemkiina soo marayna imka lacagta ayda ka timida faraha badan leh 60 milyan 120 milyan 140 noqotay systemka la soo marinaya marka systemkii aan ka shaqeynayni oo aan isku dubaridno habeenan adkaynay ayaa talagalkiisu yahay in la mariyo bangiga dhexe ee Soomaaliya wuxuu sameeyay horumar la taaban karo dhanka soo aruurinta iyo dib u soo celinta lacagaha ka maqan ama hantida ka maqan bangiga iyo dawladda Soomaaliyeed si guud ahaaneed annagoo kaashanayna bangiga adduunka iyo qaybtiisa soo celinta hantida maqan waxaan soo celinay ilaa hadda $1 milyan kuwa kale oo tiro badan oo ku daba jirnaa oo waan ognahay meelaha ay yaalaan caqabada kaliya wax dhibku waxa weeyaan meelo kala duwan bay yaalaan waqti aad u badan lacagtaasi waa maqnayd laakiin se waan la soconaa information fiicanna waan ka haynaa bangiga dhexe ee Soomaaliya wuxuu kala horumar la taaban kara ka sameeyay sidii loo soo daabici lahaa lacag shilin Soomaaliya oo tayo leh oo qiimo leh oo si fiican looga baaran degay. In the last year, the government has made significant progress on fiscal federalism as we move towards the situation where the constitution discussions will be concluded by the end of the year. The government's committed to understanding how the federal government and the federal member states will manage their fiscal arrangements in a way that is fair and equitable for all the parties and ultimately for the citizens of Somalia. عشور waa badan yihiin laakiin inagu tan qaadna wax yar weey leena dadkii inay u bartaan ayaa la doonaya saddex cashuurood ayaa animika qaadna mid waa tan dadka shaqaaluhu bixiyaan shaqaalaha bixiya meel kasta waa ka shaqeeyaan shaqaaluhu inay waxoogaa lacag bixiyaan ayaa loo baahan yahay ta kale waxa weeyaan shirkadaha in ay shirkaduhu bixiyaan waxa la yiraahdo value addition ama lacagta ay ka bixiyaan income-kooda waxa soo gala lacagtii soo gashay sanadka aakhirkiisa way xisaabin wixii kharasha way ka goyni marka haday sameeyeen ribix ama faa'iido sameeyeen inay faa'iidada wax ka bixiyaan bay midna tahay midna waxa weeyaan cashuurtan sales tax ka la yiraahdo alaabta la iibinayo la cashuuro waxa taa dekada lafteedu qaar ku leedahay dadka ay tahay midnaba full capacity laga ma qaado mid walba waxa laga qaadaa wax yar baa laga qaadaa full capacity waxa loo guuri doona ama cashuurto dhan waxa loo guuri doona markay dadku anagana aaminaan aan isbarano. Public officials are accountable for public funds, whether they come from donors or whether they are raised by tax. So it's important that citizens can see that the use of those funds is both transparent, we know what's happening, and that officials are accountable for the use of those funds. That makes for good financial governance. sharciga BFM-ku waxa weeye maamulka maaliyadeed buu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa qof walba mas'uuliyadiisa waxay tahay buu ka hadlayaa baarlamaanku mas'uuliyadiisa waxay tahay marka sharciga la eego ministerka mas'uuliyadiisa waxay tahay komitiyada kala duwan wuxuu yahay cashuuraha iyo arrimaheedu ka hadlayaa sida loo maamulayo xataa wuxuu leeyahay magaranaysa rateska lagu dhufanayo ka hadlayaa marka waxa weeyaan maamulka maaliyadeed ee dalka ay leeyahay ayuu ka hadlayaa.
So the FGC is the Financial Governance Committee. It was established in 2014 by mutual agreement between the international community and the federal government of Somalia. It pulls on members from both the international community, the World Bank, the IMF, the bilateral donors, and from the federal government, including the Ministry of Finance, the Central Bank, the Parliament, the President's Office, the Prime Minister's Office. Its purpose is to provide a forum for dialogue and advice on high-level and difficult financial governance issues. The FGC has helped the federal government recover millions of dollars of assets that were held in banks abroad from the time of 1991. It has helped the federal government review a number of high-value contracts that have been entered into since 2013. And in some instances, those contracts have either been cancelled if they're considered not to offer value for money, or they have been renegotiated to improve the terms. The FGC has been assigned a special role of helping review all federal government contracts that are more than $5 million in value and all federal government concession contracts. This special role is temporary, and when the Procurement Act is fully implemented, that role will no longer be required of the FGC. Now, two of the very important contracts that the FGC has been looking at, and they're important both in terms of their value and also important in terms of their impact on the economy, are the contracts for the port and the airport. And both these contracts were negotiated in 2013 at a time when the federal government did not have a lot of capacity to negotiate contracts and draft contracts and set good terms. So both of those contracts are now under renegotiation with the contract holders. caqabadaha naga soo wajahay waxa weeye ma oran karo reeyla caqabada waaweyn bay yihiin waxa weeyaan mid isfaham la'aana ayuunba meesha ku jirta isfaham la'aan baa ku jirta dadkii oo cashuur laga qaadin muddo dheer anaga soo taageen cashuur la qaado iyagoon arkaynin waxa loogu qabanayo oo degdeg ugu muuqan marka caqabada waaweyn ma oran karo waxa mid isafkarasho waa inta hore laakiin loo baahan yahay anagu inaanu degdeg u galo ka shaqeyno dadka la shaqeyno fahamsiino waxa la qabanayo tusno ay dadku yiraahdaan meesha waxba inaga soo galayaan dadka cashuurta bixinaya in la isbarto oo aaminaada la dhiso waa kamid weyn waxa kamid ah in dadka wax loogu qaban karo lacagahaas oo aan ka gudbi karo in mushaaraad loogu qabto dadku arkaan iskuulada la dhisayo isaan ku sheegay wadooyin la dhisayo waxyaalaha la hirgelinayo inay arkaan in maamulka lacageed la sii habeeyo la sii hagaajiyo oo dadku arkaan in nation meel ku socdo wax kordhayaan in tayada bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo tayada hay'adaha kale ee dawladdu inuu kor u kaco in tababar ballaaran la siiyo shaqaalaha bangiga dhexe in hay'adaha kala duwan ee la xiriira ayagana tababar ballaaran la siiyo wuxuu kale u baahnaan doonaa in siyaasad degan ee dhaqaalaha lagu maamulo siyaasad degan ee
sicir bararka lagu maamulo siyaasad degan ee qiimaha lacagta xataa lagu maamulo in la dejiyo arrintaasna shaqo badan baan ka qabanay waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo anagoo bangiga dhexe ah inaan haddii aan ku guulaysano heerka koowaad inay noo sahlanaan doonto inaan caqabadahaas aan ka gudubno marka la gaaro heerka labaad